magacaygu waa Qaasim Sheekh Suleymaan runtii waxaa farxad ii ah inaan ka qayb galo barnaamij 15 May lagu magac daray ama lagu xusayo sababtoo ah 15 May waa maalin Soomaalida dhexdeeda ku astaysan gobonnimo midnimo iyo halgan waa maalin Soomaali badani ay naftooda ku waayeen halgankii soo aasaasmay xilligaas waa maalin ku aadan 77 sano guuradii 1943 markii la aasaasay xisbigii SYL horaantiina la oran jiray SYC xisbigaas runtii hal barnaamij laguma soo koobi karo in laga hadlo mar taariikhdiisii iyo waqtigii socday waxyaabihii u qabsoomay iyo waxyaabaha aan u qabsoomin marna waa in la fiiriyo dhan kale laga fiiriyo oo dadka sida ay ku kasbadeen iyo say ku hanteen marna waa in dhan kale laga fiiriyo oo maxaa suura geliyay iyadoo geyiga Soomaalida degto gabi ahaanba la gumaysan jiray xilligaas inay halgan dad dhalinyaro ah oo aan facilities ka hada jirin oo dhaqaalaha haysanin ay halganka inta laga hirgeliyaan loona qoray inay gobonnimada iyagu dhaliyaan halgankaas saa u baaxad weyn buugaaga laga qoray rag badan oo taariikhyahanna wax ka yiri markastana waxa la isdhahayaa waa qabiyo taariikhdooda marka soo dhageysato ama aad akhrididna wuxuu baa qabiyo aad dhahaysaa sababtoo ah waa wax sanad fara badan socday hawshan hadii waqti badan socoto waxay u baahan tahay in laga diyaariyo kutubab waaweyn iyo buugaag iyo history iyo maaragtay kayd badan laga reebo sida la wada ogsoon yahayna halgankaas ugu burburay markii dambe SYL way kala dhaqaaqday way kala tageen iyadoo dhada sababaha ay kala tageen iyadana waa in la fiiriyo wixii sababay runtii horta waxa la yiraahdaa 15 jir baa u yaraa 35 jir baan u weynaa dadka qaar waxay yiraahdaan 21 jir baa ugu weynaa labadaba waa la qoray mid xaqiiqaas Allah yaclam isku soo duuduwa waxa ay dhalinyaro dadka waxay ku kasbadeen koo waxay ahayd daacadnimo waxay ka madnaayeen dhan u xaglin iyo waxaan danaha dadka iyo dalka ahayn taas lagu jeclaaday koo waxay ku kasbadeen waa daacadnimadaas iyo wixii danta dadka iyo dalka oo ay ka shaqeynayeen iyagana taasay diin daabiyada iyo dhibka iyo xariga iyo dhibta ku soo gaadhay laakiin way samreen samirkii bayna ku guuleysteen markii dambe waxay u xustay dhalinyaradii ka halgamaysay laba sabab labadaba la oran karaa waa sababta koowaad waqooyi halgan xoog badan baa ka hana qaaday waxa la oran karaa halgankaas shaqeeyay oo u raadgaday halgan aan hana qaadin bay ahaayeen kooxda dhalinyarada ahi laakiin waxa tirtiray oo ka awood batay halgankii xoog badnaa ee daraawisheed waqooyi ka hana qaaday waa sabab la oran karo dhalinyarada xilliga SYL halgamaysay dadkii waqooyi ka halgamayay saasay hadalkoodu u hooseeya oo aan taariikhda aad loogu xusin sababta kale waxa la oran karaa SYL markay halgamaysay geyiga Soomaalidu degto oo dhan ay waxay isku dayeen inay ka furtaan xafiisyo oo dawlado kale xukumayeen oo ay dadku yeeshaan sababtoo ah dadka hogaansana oo dhagaha dadka Soomaaliyeed baa weedhooda ku dhacaysay maadaama dadka Soomaaliyeed ay iyaga wax ka dhageysanayeen baa u suura gelisay inuu iyagu halgankooda xanaqaad noqdo kii waqooyiguna uu xanaqaad noqon midda kale labada gumaysi isku mid ma ahayn gumaysiga Ingiriisku dadka uu kasban jiray oo waxba bari jiray oo wuxuu sameyn jiray inuu dadka iyaga qudhooda kasbado laakiin kan saama ahayn koonfurta oo wuxuu ahaa gumaysi dadka aad madax uga taagan oo cidii halganka u dhaqdhaqaaqda qof iyo shakhsi u abaari jiray oo samaystay dad u shaqeeya danaha danaha talyaaniga iyo maaragtay adii marka koonfur gumaysansi
dhalinyarada maanta waxaa la odhan karaa nin waliba wacyigii uu ku dhashay wixii jiray buu la hana qaaday. ninkaasi wuxuu dhashay isagoo la gumaysto, wuxuu dhashay isagoo gayigiisii iyo ciiddiisii iyo dalkiisii shisheeye ka arribay, wuxuu dhashay isagoo dalkiisa waxba laga weydiin, lagu amar ku taaglayo, markii la doonana la xidho, markii la doonana la dilo, xoolihiisana markii la doono la dhaco. laakiin kani wuxuu dhashay dalkiisa oo magac leh, oo calan leh, oo dunida laga ictiraafsan yahay buu dhashay. wuxuu ku dhashay markii ka hadleen dhalinyarada hadda joogta intooda badan burburkii un bay dhasheen, wixii burburka ka horreeyay hadda odayaal bay isu dhigeen. wixii uu la hana qaaday unbuu ku fikiraya. qof inta badan wuxuu ku hana qaaday ee ku dhashay ee ku koro unbuu ku fikiraya, wax ka duwan kuma fikiro. kuwaas cadaadis iyo caburis la soo mariyay baa ka keenay ciilka iyo inay gumaysiga ka xoroobaan. kuwana may arag cadaadis, may arag caburin, may arag marku taagleen, may arag cid gumaysata, may arag gurigeedu ku dhashay, caaniga geela hooyadii iyo siduu hooyadii gurigiisa baxagu cunay buu ku hana qaaday, jaamacad buu ka baxay, luqado kala duwan buu ku hadlay, dunidu afbartay. historicalkii dalkiisa xitaa inta badan waxaa laga yaabaa inay dhalinyarada hadda waxbartay kaga horeyso wadamada dibadda inay taariikhdooda yaqaanaan, oo aysan inta badan haddii wax laga weydiiyo dhaqankii Soomaalida iyo maaragtay oo gundhig u ahaa baadiyo. Soomaalida waxay ahayd jaamacad bay lahayd baadiyo la yiraahdo, carruurta la geeyo, lagu soo barbaariyo, xoolo raaca, heesaha, hees dhaqameedka sugan wixii ma yaqaan. laakiin wuxuu yaqaanaa historical wadamo kala leeyahay, xilligii xornimada qaateen, xilligii kan halgamayaal kale u yaqaanaa. laakiin dhalinyarada joogta ma garanayso haddii la yiraahdo halgamayaashii Soomaalida waxaa laga yaabaa inay dhowr qof ka xusuustaan, iyada oo 22 la gaarsiiyay tirada halgamayaasha ku caanbaxay halgankii ama u dhintay naftooda u waayay. dadka waxaa laga yaabaa marka la weydiiyay Sayid Maxamed iyo wax lamid ah ka garanayaan, iyo Xaawo Taaka iyo dad ay dhowr qof ka garanayaan, iyo Xalane iyo dad dhowr qof inay ka gartaan baa laga yaabaa. laakiin saas arrintu maaha. marka waxaan kusoo koobi karaa su'aashaas, labada dhalinyaro isku wacyi baysan dhalanin, taasaa sababtay. والله SYL marka aynu ka hadlayno ama gabi ahaanba halgamayaasha guud ka soo qabanno, halgamayaashu way badan yihiin oo waxaa ka mid ahaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo ugu magac dheer, oo markii halgan Soomaaliyeed la xusuusto isaga la xusuusto. Axmed Gurey baa isna ka horreeyay oo wadankan hadda Ethiopia haysato halgankiisu ka hana qaaday. waxaa kale oo isna jiray sida gabadha Xaawo Taako ee kacdoonkii SYL ku dhimatay oo kale oo la yiraahdo halgamayaashay ka mid ahayd naftooda huray. dadka qaar siyaabo kale u dhigaan dilkeeda ay dad Soomaali xitaa ka dambeeyeen iyo waxba la sheegaa, laakiin isku soo duuduuba halgamay un bay ahayd gabadhaas u dhimatay dadka iyo dalka. waana dad halada loo dhisay dawladda Soomaaliya xilliga jirtayna la isla qiray inay halgama ahayd, xus iyo xusuusna mudan tahay, taaladana lagu casuumay. waxaa jiray dhagax tuur oo iyaduna ahayd halgan. waxaa jiray Sheekh Xasan Barsame oo isna halgamaa weyn ahaa, koonfurta ka hana qaaday, wuxuu ka soo jeeday koonfur. Xaawo Taako waxay ka soo jeeday kililka shanaad, dadku inay Soomaalinimo wada raadinayaan bay ku tusaysaa. Sayid Maxamed Cabdulla Xasan wuxuu ku dhashay waqooyi, dadku saasay uga soo kala jeedeen. afar ka mid ah halgamayaashii SYL waxay ka soo jeedeen mudug, gobollada dhexe ah. siyaabahaasay Soomaali ugu firiirsanayeen dadku, oo may ahayn dad isku hal meel ama la dhihi karo waqooyi bay wada ahayn ama koonfur bay wada ahayn ama wadankan hadda loo yaqaano kililka shanaad bay ahayn. marka runtii waa dad ku wada baraarugsanaa inay mar arkaan ciidooda xor ah iyo dalkooda ay ku arrinayaan. والله magacyadooda waxaan ka xusi karayaa ninkii fikradda lahaa Yaasiin, ninkii fikradda lahaa ee abuuray markii uu xog haya marna ka ahaan jiray. waxaa jira Sheekh Abdulqaadir Barqa la oran jiray, Sheekh Abdulqaadir sheekhi la oran jiray oo kale oo isaga qudhiisu mar gudoomiye ku xigeenka ahaa. aad bay u badnaayeen. horta waa run oo halgan kasta wuu kufaa una kacaa. halgankooda marar badan baa waxaa ku dhacay xoogaa hantaaqa gaadhay oo markii dadkii maaragtay baraarugay waxa lagu hayay mar walba waxay ahaayeen dad Soomaaliyeed oo uu adeegsanayay gumaysto.
marka dibindaabyo kasta oo ku dhacday ama haddii dadkan hadda yidhaahdo xitaa halganka may dhalinin oo kale ama markii la way iskhilaafeen konton stadiyo oo kale waxaasoo dhan dadun Soomaaliyeed baa maaragtay riixay oo shaqaynay oo Talyaanigu dabada ka riixay oo gumaysuhu qarash gareynay oo la adeegsanay marka siday u badan yihiin dadka maaragtay taariikhda u dhuunta daloola ay xusaana SYL ama leegadii guushii iyo calan saarkii Soomaaliyeed dadkii dhaliyay gabagabadii waxaan ku soo koobi lahaa hadalkayga maadaama SYL maanta 77 sano guuradii loo dabaaldegay inaynu isxusuusino ama aynu maanka ku soo celino iyo xusuusta dhalinyarada maanta maxay dheeraayeen maxaa maanta looga walaayahay dhalinyarada nool ee joogta ee waqtigoodu iyo waayahoodu ku soo simay Soomaalidu waxay tiraahdaa rag kasta waa ku raggeeda oo waqti kasta iyo marxalad kasta iyo xaalad kasta oo taagan ragga ay ku timid baa ka tashada tifqiya tiro oo dhammaystira raggaasi kaalintoodii way ka soo dhalaaleen ceebina kama raacin laakiin dhalinyarada maanta joogta iyaga oo haystaa wax badan oo nolosha fududeynaya haday tahay technology haday tahay isgaadhsiin haday tahay waqtigu ka fiican iyo ka dhaqaale badan yihiin haday tahay xiriir caalami dhan walba iyadoo ay maanta ka fiican tahay haddana waxa maanta moralkii iyo qadiyadii iyo midnimadii iyo hankii iyo himiladii maalinta la lahaa waxa hoos uga riday maanta kuwa jooga oo raggii hore waxa ay hansanayeen kuwa maanta jooga aysan hansanaynin aynu inagu ka mid nahay ba isweydiin mudan waxaan dhihi lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed maanta joogtaa way gaari karaan raggaas oo kale waxay qabteen oo kalena way qaban karaan waxayse ku xidhan tahay oo keliya 13 la mid ah ama 26 ma aan idhaahnay aan laba jibaarnimo ragga u dhigma oo Soomaali u kaca ayaynu maanta u baahanahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.